أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada channelka Engineer Maxamed Ibrahim Cumar. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno sidee ardayda u baran karaan luqadda Ingiriiska. Waa su'aasha inta badan la isweydiiyo, iyo sidee ardayda ugu hadli karaan luqadda Ingiriiska. Waa in midda la isweydiiyo, iyo mid ugu dambeyso sidee ardayda u qori karaan luqadda Ingiriiska. Waa maanta intaan oo badan ardayda la isweydiiyo. Saddexdan ay ardayda markas isweydiiyaan. Sidee ardayda u baran karaan luqadda Ingiriiska, iyo sidee ardayda ugu hadli karaan luqadda Ingiriiska, iyo sidee ardayda u qori karaan luqadda Ingiriiska. oo maanta wax meesha taalo ila badan marka fiirisid luqadda Ingiriiska waa luqad fantastic ama international ah oo badanaa lagu hadlo. Laakiin hadda marka fiirisid qaabka Soomaaliya marka fiirisid, markuu ardaygu dhahayo waxaan rabaa English inaan barto oo baran karaa luqadda Ingiriiska, balse waxyaabaha aan u suurtagelin waxay tahay ilaa waxa la fiiriyaa environment-ga oo ardaygu ku nool yahay. Tusaale ahaan maanta waxaan rabaa inaan barto luqadda Ingiriiska oo aan u barto si oo adiga cajiib ah oo correctly ah, aan ku hadli karo, aan u qori karo, aan u xeex karaan dhaaday. Laakiin markaan fiirino ardayda maanta badanaa markay dhahay ardayda sameey practical, markasta ma practical sameey, ardaydu ma sameeyaan practical ma sameeyaan. Sababtu maxay tahay? Waxa la fiiriyaa environment-ga uu ku nool yahay la fiiriyaa. Ila maanta haddii ardaygan environment uu ku nool yahay hadduu ahaa la environment English ah oo spoken only English uu yahay, ardaygaas uu ku hadli karaa English. Balse maanta hadii ardayga practical sameey ama ku hadal English kuma hadli karo, ilaa environment-ga wuxuu yahay environment Soomaali lagu hadlo. Marka haddii ardayga uu fahmo saddexdan, sidee ardayda u baran karaan luqadda Ingiriiska, haddii fahanti sidee u baran kartaa luqadda Ingiriiska, wax walba waxay tahay in adiga ka soo go'do. Maanta hadii adiga ka soo go'do in luqaddan baratid waa baranay, laakiin barasho oo iska barama ahaan waa barasho adiga micnaha aad qulubtaada ka soo go'day oo aad in luqaddan baratid oo luqaddan aad ka miro dhalisid oo berito adiga ku anfacdo meel kasta aad tagtid ka saamaxdo ama ka saacido ama caawinaad aad ka heshid. Ila luqadda Ingiriiska waa luqadda international ama fantastic ah oo markasta